السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورقيارته سودو هذا ما أنت وحن ربا إن شاء الله تعالى إن همبليو هل كان أقدره عيدا كان قلب كسيدة بونتلان عيدا كان قلب كسيدة بونتلان كواس أو دجال أذك كجري بورها علمسكاد دوركي بلود إلى صور عفي أيا وحا أسر تجشي ما أنت إني قعنت كوسو ديجان نين رجع سرسرة أو عيدا كاس أما كوا كسو هرجيدا بأيراده وقابل سنة الريمو فربضن وحنسك كاشدي qabashada ninkan dawladda Mareykanka iyo dawladda Puntland ninkan la soo qabtay ayaa waxa lagu magacaabi jiray Cabdi Wali Maxamed aw Yusuf naanaystiisana waxa weeye Cabdi Wali Walalac baa la yiraahdaa ayaa waxa isagu uu ahaa ama uu qaabilsanaa kooxda in uu ka shaqeeyo arrimaha dibadda foreign relationska sidaas la midana waxa uu qaabilsanaa xagga dhaqaalaha soo xagga dhaqaalaha iyo arrimaha foreign-ka ayuu qaabilsanaa taas oo sababtay baa la yiri in uu noqdo ninka ugu culus ee soo iibiya rasaasta soo iibiya hubka ninka ka shaqeeya soo hayr-gareeya ama keena qolyaha ciidanka u noqonayo u dagaalamayo kooxda ninkaas ayuu ahaa waxa xafiiska Department of Treasury-ga ee dalka Mareykanka oo qaabilsan arrimaha foreign assets-ka hantida dadka shisheeyaha ay leeyihiin oo kale ay ku eedeeyeen hadda ka hor in ninkan uu keeno dagaalyahano shisheeye ah in uu soo gado hubka in uu rasaasta soo iibin jiray asaga oo ka dhigay sidaas la mid ah ka dhigay groupkan ku nool Soomaaliya ee ISIS Soomaaliya loo yaqaano in ay noqdaan dhaqaa'isha dhaqaale oo ay isticmaalaan kuwa kale ee dalalka kale jooga sida wadamada Afrika oo kale ISIS-ka Afrika jooga in uu u noqdo meel dhaqaalaha intii loogu soo ururiyo ninkii u dhaxeeyay oo kale gudbinayay in uu noqdo soo nimankaas naftooda bangi ayuu u noqday ninkan ayaa waxa lagu soo eedeeyay oo dawladda Mareykanka ay ku soo eedeysay in uu qayb ka ahaa dadka canshuuraha laga qaado oo xooga looga qaato gaar ahaan baa la yiri dekada Boosaaso waxa ka soo baxa waxa la sheegay oo la xaqiijiyay ama reportka Mareykanka uu xaqiijinaya in sanadkii 2022 $2 milyan oo dollar lacag gaaraysa uu ka qaaday dekada iyo agaarkeeda iyo ganacsatadaba taasna waxa ka sii yareed baa la yiri 2 milyan iyo bar sanadkii ka horeeyay 2021 uu ka qaaday dekada Boosaaso iyo aageeda iyo Puntlandba marka waxa isaga lagu daray group la yiraahdo ama number baa jiro magac loo sameeyay specially designated global terrorist SDGT baa la yiraahdaa dalka Mareykanka ayaa magacan iyo numberkaba shaabadan bixiya shaabadan waxa isaga lagu dhuftay bishii July 2023 waxa kale oo uu la shaqeynayay baa la yiri oo uu ka garab shaqeynayay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Faahiye Ciise iyo ninkii aasaha u ahaa groupkan Cabdiqaadir Muumin kuwaas oo labadoodaba dalka Mareykanka uu ku soo rogay cunaqabateyn xagga dhaqaalaha ah sidaas la midana uu ku soo rogay madaxooda lacag uu soo saaray marka arrinkan waxa uu cadeynayaa operationkii ama howlgalkii Hilaac in uu yahay mid guuleystay maadaama hadeer ay bilaabatay raggan in madaxdoodii gacanta lagu soo dhigo oo raggii odayaasha ahaa oo madaxda u ahaa hadday bilowdeen in la soo qabto waxaan jeclahay Cabdiraxmaan Faahiye Ciise ninkii in uu ahaa madax jabinta qaabilsanaa kaas oo horay kulay xabsiga ugu dhintay ninka kaliya hadeer ka maqan groupka ama lagu sida la sheegay operationkan gabagabada jooga gacanta aan soo gelin wali waa odaygii ahaa Cabdiqaadir Muumin kaas wali gacan lagu ma hayo hase yeeshee waxa lagu sii dhawaanayaa baa la yiri meelo ay qoliyaha madaxda ah ay ku kaydsanayeen nimankan ayaa marka guulo waaweyn waxa ka soo hoyay oo noqday hormuud oo markii ugu horeeyayna ay noqotay Puntland in ay ku qaado all out war dagaal aan maaragtay janta fagax oo galay ah in ay ku qaado ayay ku guuleysatay in ay waliba intay dagaalkaas ku qaado ay ragina ay meel saarto ay kaga guuleysato waxa ku xiga haduu Ilaahay idmo sida warbixinada ay sheegayeen madaxweynahana uu dhowr jeer ku soo celceliyay operationka onkod kaas oo lagu aadi doono Calmadow qolyo kale ayaa ku jira waa la wada afduuban yahay laakiin waa kala qolaa leeyahay qoladan hadda la soo gabagabeeyay oo maanta ninka madaxda ah laga soo qabtay oo ninka Mareykanka waliba ay sida aadka u raadinayeen
laga soo qabtay waa qolyihii ISIS ahaa waxaa lala soo qabtay ninkan odayga ah laba qof oo kale oo la socotay kaligiis lama soo qaban so waxaan jeclahay in information fara badan laga heli doono ninkan odayga ah Cabdiweli haddii maadaama uu yahay ninkii isku xiraayay leemanka Africa iyo Asia oo uu ka keenayay dad u dagaalama uu ka keenayay hubka uu ka keenayay rasaasta iyo qasnajiga ninka gacanta ku hayo oo dhaqaalaha dadka ka soo qaadana isaga uu u ahaa so the only person hadeer kulay maqan waxa waaye ninka aasaasaha u ahaa Cabdiqaadir Muumin isagana kulay waa ku daba jiraan waxa la sheegayay in oo la soo report gareynaya in hal god ay ku hareen godkaasna ciidanka Puntland ay ku weegaarsan yihiin isdhiibid kulay laga filimayo laakiin sidii loo geli lahaa ba maaragtay laga shaqeynaya so operationkaas Hilaac waa guuleystay waan soo dhaweynaynaa waan u hambalyeynaa ciidamada qalabka sida Puntland dowladda Puntland hambalyo baan leenahay ciidanka hambalyo baan leenahay guuleysta insha Allah taala kulligeen waan ugu batashaan naftiina iyo waxaan dhanba noo horteen marka guuleysta guusha Allah idin siiyaan leenahay insha Allah taala wixii aan kale aan maqalno waxa waaye iyadoo la soo gabagabeeyay programkan oo Dani ka qodbeeyay iyo anaga oo u jeensana dhankaas iyo Calmadow so maanta intaas ayaan rabay inaan idinka dabageeyo وهذه سلامة هيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Share this video, like the video, inshallah, and then subscribe or follow whichever one I mesh naga daawanayso kii ay tahayba. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.